mideynta dakhliga, xoojinta amniga iyo casriyeynta adeegga hay'adda ayaa sidoo kale hirgelisay nidaamka cusub ee BISAS oo ah nidaam casri ah laguna maamulo xuduudaha iyo aqoonsiga dadka kaasi oo adeegsanaya xogta biometriga ah sida faraha iyo aqoonsiga wejiga. nidaamkan cusub ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo amniga dalka laguna yareynayo socdaalka sharci darrada ah isla markaana lagu hubiyo hufnaanta iyo kalsoonida adeeg ee hay'adda socdaalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha waxaan warbixin ka siinay wada shaqeynta nagala dhaxaysa dhammaan hay'adaha dalka sida booliiska, nabadgelyada iyo aviation-ka dhamaantood aan dardar gelino. sidaas oo kale wuxuu booqday 2 xafiis oo muhiim ah, xafiiska FDU-ga Fraud Detection Unit kaasoo looga hortago baasaboorada been abuurka lagu safra ama fiisooyinka presentation uga sameeyay runtii aad iyo aad ugu qancay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeediyay madaxda iyo howlwadeennada hay'adda ayaa ku adkeeyay hirgelinta shuruucda hay'adda socdaalka, xaqiijinta hufnaanta adeegyada muwaadiniinta iyo la dagaalanka tahriibka, argagixisada, socdaalka sharci darrada ah iyo inay si fudud dalkeena ku soo galaan dadka dambiyada ka soo gala dalalka dunida. sidaas oo kale madaxweynaha markaan dhammaan warbixinadii aan siinay wuxuu talooyin nagu siiyay oo soo jeediyay oo runtii awaamirna nagu siiyay inaan dardar gelino shaqadan hore sii wadno. sidaas oo kale madaxweynuhu wuxuu nagu amray oo noo sheegay in immigration-ka awoodihiisa dhammaan aan isticmaalno oo maadaama immigration-ka uu yahay dhammaan hay'ad federaal oo dalka dhanka wada howlgasha uu yahay. sidaas oo kale madaxweynuhu wuxuu nagu amray tayeenta baasaboorka iyo kor u qaadida sumcadda baasaboorka Soomaaliyeed. wuxuu kaloo amar nagu siiyay madaxweynuhu inaan mar walba aan ka shaqeyno xogta muwaadiniinta Soomaaliyeed aan ilaalino. arrimahaas oo dhan waa arrimo muhiim ah runtii madaxweynaha runtii aad iyo aad maanta noo dhiirigeliyay, sharaf ay noo had booqashadiisu. hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa guulo muhiim ah ku tillaabsatay sanadihii la soo dhaafay iyada oo xoogga la saaray ka faa'iideysiga tiknoolajiyadda, casriyeynta shaqada hay'adda si la mid ah hay'adaha kale ee dhiggeeda ah iyo sare u qaadidda sumcadda caalamiga ah ee baasaboorka Soomaaliga ah. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.